وأنا في كفر أحسنها هاي هذه أنا وبقعدين هنا وحب روح بدن ماشان كدعي runtii aniga uma soo istaagin khudbadda inaan jeediyo waxaan u soo istaagay inaan u mahadnaqo waxaan u imid inaan garabka ka dharbaxno oo bogaadino intii ka soo qayb qaadatay in isbitaalkan quruxda badani maanta inoo dhismo waxaan ugu horreysiinayaa runtii cismaan cabdi muuse oo in badani ay ka dhawaajisay shaqada uu ka qabtay meesha cismaan markaad aragto araggiisa markaad aragto ayaa shaqo kuu muuqanaysa isaga dhanbaa shaqo ka suubsan runtii waxa uu qabtay iyo dadaalka uu muujiyeyna waad ka markacdeen waxayna yidhi marka waa in la bogaadiyaa waa in la dalacsiiyaa daadaan kaxayno idinka kaxayno yaa ma kaxaysana gabamage waan ku dalacsiina waaya war wanaagsan wey dhaqankeenna markii loo bogo ninka odayga aad loo bogo oo hadda gabar waxbaa la siin jiray taas gabadhood loo geenayaa intii kale oo dee localka ahaydoo sheekh fu'aad iyo shirkaddii dhismaha injineerka iyo dadka ka shaqeeyey meeshan oo iyana runtii hawshaas aad uga qayb qaatay ama ha noqoto dhaqaale ururinta ama ha noqoto dedejinta dhismaha oo runtii markaad aragto aad iyo aad ugu farxayso iyana waa mahadsan yihiin inta kale oo dadka lookalka ah oo hawshaas ka qayb qaatay u kacayna waa ku mahadsan yihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan xuso waa igala hormaray xildhibaan dhagahori oo runtii mashruuca u ahaa buddigo u ahaa in la sheego na loo baahan yahay qaybtii libaaxaleedu ka soo qaatay oo annaga iyo wasiirka maaliyadda iyo aan runtii aan cag naga qaadaynin in mashruucu hirgalo in dhaqaalihiisi la helo runtii matalaad fiican buu ahaa gobolkan iyo degmada intaba aad iyo aad buu mahadsan yahay haddii waxqabad la isku soo celinayo dhagahori aan soo celin lahayna taa micnaheedu anigana way darkaan warinaysaa marka waxaa markaa ugu dambeyn rabaa inaan aada ugu bogaadiyo wasaaradda caafimaadka iyo madaxdeeda wasiirku ugu horeeyo oo runtii ma aha qardho keliya iyo karkaan laakiin isbeddel muuqda oo statistickeeda hadda uu idiin tirinayo wasiirku isbeddel muuqda oo isbitaalla leh oo MCH leh oo health post leh oo shaqaale kordhin leh oo daawo leh wax badan oo badan runtii wasaaraddu ay qabatay oo runtii ah wasaaradduna ay tahay moral ministry wasaarad lagu daydo ay Puntland ka tahay runtii aad iyo aad u mahadsan waxaa kaliya runtii dowladda Puntland dhaqaalaheedu waa yar yahay cashuur bixinta lama jecla baahidu waa badanaysaa mid amni oo la socotaano
sanad colaayad baan dhashaan u marinayaayo maalintaan imid baa dagaal lagu bilowday ama ha noqdo dagaaladii ka dhacayay gaalkacayo ama ha noqdaan garacad iyo suuj iyo garmaal qandala galgala tugraq iyo somalilan dagaalba kama aanaan bixin runteed marka dagaaladuna waa taqaanaanoo waa khasaaro badan yihiin khasaaraha nafeed baa ugu weyn waxaana ugu yar midka dhaqaale burburka uu abuuro dagaalku abuuro taa waxay keenaysaa marka in miisaaniyaddiis dhinto in wax badan oo la qaban lahaa aad awoodi kari weydo inaad qabato dhanka kale haddee waddanka difaaciisuna wax ugu muhiimsan dowladda loo samaysta weeye dowladdu waa inay dalka difaacdaan cadow gudo iyo cadow dibadeed bay ka difaacdaan inta haddaysan suubin karin dowladnimadeeda way nusqaamaysaa waana dhariisheedaa muuqanaysa marka dalka in la difaaco dhanka kale la horumariyo waxaan is leeyahay dhanka horumarintana waxma aanan hagran oo waad ka markhaati kacaysaa wixii kaabayaal dhaqaale iyo isbeddelahoo suubsama 5 sano u dambaysa badina waxay ku suubsameen waxaa weeye isku tashiga dadka reer Puntland waxaan helnay oo dheeraadihii waxay tahay wax dowladdu u sacyiday oo ay u dadaashay in la helo oo maalgelin dabadeeda ama se macaawino dabadeeda laakiin taa waxaa ka horeysa dadku inay aaminaan inay wax qabsan karaan inay wax bedeli karaan qofka bini aadanka xayawaanka kaga duwan yahay waxaa weeye inuu isbedel noloshiisa ku suubiyo improvement iyo horumar joogto ah in noloshiisu qaadato way waxa aan runtii aan kaga duwanahay xayawaan kaga duwanahay marka dawladdu iska tusheedu ishaaro u buu ahaa waxa guurayay oo soconayay oo dadaalayay oo wax qabanayay dadka reer Puntland ay ahayd xuduudeena caqligeena oo la isu geeyay ayaa wax badan loogu suurtagalay markaad wax qabsato waxbaa loogu darayaa inta kale way arkaysaa inaad awood leedahay inaad qabsato inaad wax qaban kartid marka inaan muujino inaad wax qabsan karno waana qabsanay waana dadaalay wax badan baana hirgalay wax badan oo soo socdana waa hirgali doona insha Allah dilahayna ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ka hadlo halkaa waxaa islaamku ku dhawaajiyay wuxuu yidhi doorashadii inay dhacdo guddiga la magacaabo waxaan u sheegayaa dadka reer Puntland doorashadu weligeed waxay dhici jirtay January 8 January 2019 doorasho fiican oo xor ah oo xalaal ah oo kuwii hore ka si fiican baa dhici doonta insha Allah haddaad khadabkiida soo ceshataan alxamdulilah haddaad mid kale ka haysataan waa rabbil caalamiin waxaan idin sheegayaa marka guul iyo khayr baan rajaynaa insha Allah Puntland ha horumarto Soomaaliya ha noolaato aad iyo aad loo mahadsantihiin soo dhawaada